صاحب هذا بيج كعصب طحي نديريجي وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan baranaynaa haddii ilaahay yiraahdo aaladda lagu cabiro biyaha cusbada ku milan inta ay la eg tahay. aaladan magaceeda waxaa la yiraahdaa TDS and EC meter. TDS iyo EC meter ayaa la yiraahdaa. waa aalad fudud gacanta aad ku qaadan karto, jeebka aad ku qaadan karto, meesha aad rabto aad la tagi karayso. aaladda tan waxay leedahay 3 badhan ayay leedahay. badhanka koowaad waa laga daaraa waana laga damiyaa. badhanka labaad wuxuu awood u leeyahay inuu kala bedelo daatada meesha kuugu qoran oo ah ppm iyo micrometer loo qaybiyay centimeter oo ah EC-ga waxa lagu cabiro. hadda halka waxay noo joogtaa EC-ga cabirkiisa. haddaan bedelayna dhinacaas u bedelaysaa ppm ayay noqonaysaa ppm. haddana waxay isu bedeshay micrometer loo qaybiyay centimeter. lambarka hoose oo 30.5 ah waa temperature-ka degree centigrade-ka weeyaan. isla lambarka dhexe haddaan mar labaad taabto wuxuu isu bedelayaa Fahrenheit ayuu isu bedelayaa. cabirka Fahrenheit-ka ayuu isu bedelayaa. lambarka ugu dambeeya oo saddexaad, badhanka saddexaad aan iraahdo oo kan ah, shaqadiisu waxaa weeye lambarkii soo baxay ama akhriskii soo baxay inuu istaajiyo si maarta aad u akhriso. marka insha Allah taala aaladan waa aalad fudud, isticmaalkeedu sahlan yahay. waxaan niri 3 badhan bay leedahay. midka hore waa laga daaraa waana laga damiyaa. midka dhexe wuxuu isku bedelaa oo la isugu bedelaa maxay degree centigrade-ka iyo Fahrenheit-ka. sidoo kale wuxuu isku bedelaa ppm-ka iyo maxaa yiraahdaa EC-ga, yani TDS-ka iyo EC-ga ayuu isku bedelaa. mid waxaa lagu cabiraa ppm, midna waxaa lagu cabiraa micrometer loo qaybiyay centimeter. midka saddexaad marka shaqadiisu waa inuu joojiyo lambarkii tiradii soo baxday inuu ku xifdiyo oo ku hayo inta aad akhriska ka boganaysid. marka insha Allah taala waan arki doonaa sida uu shaqeeyo. hadda waxaan ku haysanaa meesha tan 3 nooc biyaan ku haysanaa. biyaha koowaad waxaan u bixinay tuubada koowaad ayaan ku magacawnay. tuuba caadi aan ka soo shubnay. midda biyaha labaad oo galaaska dhexe ku jira ayagana waa tuubada labaad, ayagana tuuba caadi ah oo kale ayaan ka soo shubnay oo ka duwan. biyaha saddexaad waa xareed, waxa weeyaan distilled water ama maa'un muqatar ayaa la yiraahdaa. biyo la xareedeeyay oo laga saaray dhammaan cusbadii ku jirtay. marka saddexdan nooc oo biyaha ah ayaan aaladda ku cabiri doonaa si aan u ogaano aaladda cabirkeeda iyo xisaabaadkeedu sida ay yihiin. bal waxaan ka bilaabaynaa biyaha tuubada ayaan ka bilaabaynaa. waxaan u jeedaa distilled water-ka ayaan ka bilaabaynaa biyaha nadiifta. talaabada koowaad waan daaraynaa. marka lambarada eberta ay noo soo baxaan tartiib ayaan waxaan u dhexgelinayaa biyaha qaybta hore oo ilaa halkaas ah, ilaa halkaas ayaan biyaha gaarsiinayaa. macnaha biyaha haddii kor aad u gudbiso waxaa laga yaabaa inay waxyeelo gaarsiiso qalabka. bal hadda aan aragno sida akhrisku uu noqdo. madaxa hore ayaan u geliyey, waxaa weeyaan 12 ayuu sheegayaa. 12 ayuu sheegayaa. marka lambarka hoose ayaan taabanayaa. lambarka hoose markaan taabto qoraalkaasi waa ii istaagayaa. xataa haddaan biyaha ka soo dhex bixiyo ma dhaqaaqahayo. 12kaani marka waa ECM wey. ECM marka lambarka dhexe ama badhanka dhexe ayaan taabanayaa. waxay isu bedelaysaa. hadda qiimahan hadda meesha noo jooga waa EC, waxaana lagu ku halbeegan yahay micrometer loo qaybiyay centimeter. ayuu waan bedelaynaa. waa 8 ppm wey. cusbada ku jirta wadarteedu waa 8 ppm. temperature-ka ama heerkulkuna waa 31. waa 31. kan halkaasaan kaga gudbaynaa. waan daminaynaa. biyahan awalba xareed bay ahaayeen, sidaasaan biyaha xareedda u dhexgelinaynaa. kadib waxaan u gudbaynaa tuubada labaad ayaan u gudbaynaa ama tuubada koowaad aan iraahdo. waan gelinaynaa, ayadana waan akhrinaynaa wixii noo soo bax. waan joojinaynaa. marka lambarka hoose ayaan qabanhayaa. way istaagaysaa. marka akhrisku waa istaagahayaa. markuu saa noogu istaago akhriska noo soo baxay waa imisa? waa 1474 ppm weeyaan. haddaan u bedelno EC, haddaan u bedelno waxay noqonaysaa 2948.
948 BBM-ka haddaan u celinana waxay noqonaysaa TDS-ka ama guud ahaan cusbada ku milan biyahan waa 1474 EC-ga oo ah electric conductivity-ga ama gudbinta danabka iyaduna waxaa weeyaan 2948 qaybta biyaha koowaadna tuubada koowaadna halkaasaan kaga baxnay waxaan u gudbaynaa tuubada saddexaad intaanaan u gudbinna biyihii dasiilad watarka ahaa ayaan tuubadii ku dhaqaynaa kabacdi kuwii kale ayaan cabirkooda u gudbaynaa waayahay waan shidnay tuubadii saddexaad ama tuubadii labaad oo ah weelkii saddexaad ayaan gelinaynaa waxaan maraynaa 4348 oo ah EC 4330 ayuu ku istaagay 4330 oo ah EC ayuu ku istaagay marka meeqa ayuu noqonayaa marka TDS-ka wuxuu noqday 2169 ayuu noqday marka cabirka cusbada ku jirta waa intaas 2169 markaan u bedelnay EC-na waa 4330 ayay noqonaysaa milmoos loo qaybiyay sentimitir jazaakum allahu khayran casharkeenna intaas ayaan maanta kusoo gabagabeynaynaa waan idin mahad celinayaa waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha iloobin haddaad casharka wax ka faa'iiday inaad tidhaahdid subscribe iyo like inaad tidhaahdid sidoo kale waxaad xusuusataa casharkan cashar ka horeeyay ayaa jira oo aan kaga hadalnay TDS iyo EC waxa ay yihiin iyo xiriirka ka dhexeeya biyaha la cabo marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa asagana inaad dib ugu noqon doontid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu